حق يا صومالي أنا جاف وحول بلي جيستي وحول بلي وسمي أو إلكي قراودي تلكي لن أسكو وعي أري كان هدا أن أقالها مهر كان إنو كبر برايو وأشيغي لها لكن وحا إصدهي عبد الوهاب أما ويسا goobtan waxaa ka socotay xaflad meher oo aad u qurux badan waxaa soo xaadiray ehelada labada dhinac iyo marti sharaf kale qof walba goobtan ku sugnaa waxay u ahayd daqiiqad farxadeed rajo ayaa dhammaad isku bedeli doonta saacadaha soo socdo qofna ma filaynin waxa halkan ka dhici doono sheekii wax meherinayay ayaa bilaabay khudbadiisii iyo meherka balse mar kaliya ayaa go'aankiisii si lama filaan ah waxaa ku bedelay wiilkii wax lagu meherinayay qof walba goobtan xaadir ka ahaa ayaa bilaabay inuu indhaha taago kadib markii mikrofoonka uu qaatay wiilkii wax lagu meherinayay wiilkii ayaa ogaaday wax ay gabadha ka qarinaysay muddo dheer balse ehelada labada dhinac waxay isku dayeen in arrinkan si hoose ay ku xaliyaan wiilkii ayaa go'aankiisa diiday inuu qaato ehelada wuxuuna ku dhawaaqay iyadoo goobtan qof walba uu joogay uu naxsan yahay arrinkan lama filaanka ah goobtan waxaa ku soo dhammaan doono rajo riyo sanado badan soo socotay حق يا صومالي أنا جاف وحول بلي جيستي وحول بلي وسمي أو إلكي قراودي تلكي لن أسكو وعي أري كان هدا أن أقالها مهر كان إنو كبر برايو وأشيغي لها لكن وحا إصدهي عبد الوهاب أما ويسا وحا سعتي حفلة مهر كيغا ويلك عديسة عديدة كل ويوذ جوغين ويوذ فرح سنايين شاقي وهدلاي أمر قرى وحا إسبدلي ويلكي يقول لها قوانكيسا قفنا ما فيلين عبد الوهاب قوانكيسا إنو سان إسكو بدلاي أو مهركينا ماشا أكو باجي دونو إهلكيسا إهلكيغا وحا إسكو ديان قوانكيسا إناي بدلان ويبدلي وايان ربعادي دراد أني عبد الوهاب وحي إهد حفلة مهركيني مركي إهد عبد الوهاب وحو إيجي مع تلك مريكنك muddo dheer waxaa ka qarinayay oo ogaaday Cabdi Wahaab arikan hadda aan ogaa lahaa meherkeen inuu ku burburaayo waa u sheegi lahaa laakiin waxaa isdahay Cabdi Wahaab ama weysaa inaa waay kaliya aan ka baqaay noloshiisa waxaa rabaa ilmaha dhali doona inaa asi aabaha u yahay inaa hooyo u noqdo tan inay dhacaysa hadda ogaa lahaana ma uu ka qari lahayn Cabdi Wahaab hooyada iyo aabahay baryeen si qaas gooniya meel intay ula baxeen ay ula hadleen Cabdi Wahaab hooyo iyo aabo intay dhaheen gabadheena ceebteeda qari maalmahaada iska qab kadibna iska fur tolka hanoo jiwinin ay dhaheen Cabdi Wahaabna waxaa u cadaa kaliya asig go'aankiisa kaliya u cadaa hooyo aabo war uu ka diiday go'aankiisa bisa u cad Cabdi Wahaab shaaqiya la hadlay shaaqi si kasta kula hadlay go'aankiisa inuu bedelo uu diiday asa mikrofoonka intuu qabsaday wuxuu dhahay ciidan ehelkan ehel been badan waaye gabadhoodna marrawi leeguna mehrimaayo xooleygan 3 bari gudahooda leegu soo celiyo oo dhahay xoolihiisa in loo soo celiyo rabaa 3 bari gudahooda wuxuu dhahay ciidan waa been badan yihiin gabartoodana marrawi mikrofoonka intuu qaaday umada Soomaali Maxamed dhan saasoo ku wada maqashiye in xoolihiisa 3 bari gudahooda loogu soo celiyo lacagta intee ka keenay Cabdi Wahaab wuxuu leeyahay lacagteeda ii soo celi 3 bari gudahooda lacagteeda waa u baahanahay lacagti ducaa waalidka u dhiibay hoola ku kiray dahab ku soo gatay waa ka dahabkeyga waa ka soo aragtiin wixii ma hay inta ka keenay Cabdi Wahaab wuxuu leeyahay 3 bari gudahooda xoolahayga ugu soo celi asoo iceebay oo fadeexadaas i dhigay oo qabiilkeyga dartiisa oo igu nacay maxaa sameeyaa markaan Cabdi Wahaab qabiilkeyga dartiisa qabiilan aan ahayn aan sheegtay waxa islaha Cabdi Wahaab ama weysaa kaliya islaha laakiin markuu ogaaday meherkii iyagoo la dhex fadhiyo oday kamid ah u sheegay qabiilka rasmiga ah aniga ahay Cabdi Wahaabna sidaas waxa isdhahay ama weysaa qabiilka rasmiga hada u sheegatid ama weysaa isdhahay marka qabiilkeyga rasmiga markuu ogaadana gurkeyga waa baajiyo
xaq miyaa Soomaaliya anoo ijaafo wax walba la ii geystay oo wax walba la igu sameeyay oo ehelkayga iyo qaraawadeeda tulkayga dhan iskugu wacay oo Cabdiwahaab hadii dhahayo xoolahayga soo celi wax walba oo dhahay ani gabar Soomaali miyaa Cabdiwahaab rafaadkan muxuu yimarsiinaa dhibaatadan iyo waxaan muxuu igu geysanaa gabar Soomaali miyaa daadan ahaan ii sheega